waxa uu ahaa nin hantiilaah qoyskiisa waxa uu ka koobnaa hooyadiis walaalihiis xaaskiisa iyo carruurtiisa balse hooyadiis lama nooleen isaga waxa uu sharaf iyo qadarin ku lahaa bulshadii uu la noolaa xilligaas balse nasiib darro waxa uu ahaa mid aan ku fiicnayn xiriirka alle mana dukan jirin salaada uu alle weyne ku waajib yeelay adoomadiisa dhismaha qasri weyn oo aad u qurux badan isagoo ku howlan waxa uu yimid nin sheekh ah oo ay qaraabo dhow yihiin sidoo kale hantiilo maaha balse aanan qadaynin oo nolol maalmeedkiisa heli kara soo dhaweyn iyo iswaraysi kadib sheekhii waxa uu bilaabay inuu u dardaarmo salaada wanaaga iyo in uu soo booqdo hooyadiis oo u hilow qabta mar uun inay aragto isaga sheekhii wacdi dheer kadib ayuu hadalkiisii kusoo gabagabeeyay jannada adduunka waa hooyo mugdiga qabrigana waxa ku iftiiminaya salaada ee nakeen hadda aan masaajidka kusoo dukanay si ay isla weyne ku jirto ayuu ugu jawaabay aniga waxaan ahay nin maalqabeen ah sharaf maamuus iyo qoys jacayl xad dhaaf ah u qaba haysta ee salaada maxaan uga baahanahay iyo xiriirinta hooyada oo iyadaba duq iska ah sheekhii ayaa ugu jawaabay warmooge salaada adduun iyo aakhiro waa badbaado midda kale hantida iyo qadarinta ay dadka ku hayaan intaba mar uun way dhammaanayaan ee cibaadada alle ayaa liibaan lagu gaaraa taasoo ah ujeedada alle subxaana watacaala uu abuuray jinka iyo insiga dhammaan dadkaas oo dhan kuma jecla ee waxay doonayaan inay hantidaada ku manaafacaadaan haddaad u baahatana waxba kuma tarayaan haddaad doonaysa xaqiiqada hadalkayga inaad ogaato qasriga nagey oo qoyskaaga ayaan u sheegayaa in adiga aad xanuunsan tahay oo aad u baahan tahay qof qoyska ah kelihiisa mid ka mid ah inuu ku siiyo si noloshaada ay u badbaado kadibna aan aragno ciddii ku badbaadaysa adiga qasrigii ayay tageen dhammaan walaalihiisa iyo reerkiisaba way diideen in ay hal kili siiyaan si uu u sii noolaado ninkii barwaaqada ay ku jiraan usoo tiriya tacabeelay sheekhii ayaa yidhi maskiinkan xooggiisa iyo maankiisa waxa uu soo beelay maanta ayaad ku raaxaysanaysaan waadna badbaadi weyseen markuu idiin baahda ee hooyadiis baxa u soo qaada inay iyada badbaadiso ayaa laga yaabaa ninkii maalqabeenka ahaa ayaa hoos isu yidhi haddii ay badbaadi waayeen dadkan maalin iyo habeen u taagnaa horumarintooda hooyadii oo aan cidlo uga tegay mar hore ma ay badbaadinaysa taasi macquul maaha ayuu niidii iska yiri hooyadii ayaa la keenay markii arrintii loo sheegay ayay hooyadii tiri aniga indhahayga kilidayda iyo dhammaan jirkayga ayaan diyaar ula ahay wiilkayga aan muddada 9 bilood ah uurka ku soo siday si uu igugu badbaado waayo noloshiisa waa nolosheeda mar allaale markii dhagihiisa ereyadaasi ay ku dhaceen aad buu u ilmeeyay ninkii maalqabeenka ahaa hooyadiis ayuu lugaha qabsaday wuxuuna ka codsaday inay cafiso wuxuuna yidhi sheekhii waa runtaa jannada adduunyada waa hooyo daacadda iyo cibaadada alle mooye wax kale adduun iyo aakhiro ima anfacayaan hadda ayaan alle u toobad keenay wixii alle ii dhoweynaya dib dambe ugama fogaanayo walaal xiriirka alle iyo baarnimada waalid waxa ay kuu horseedayaan in noloshaada adduun iyo midaada aakhiraba barwaaqoodo waxba kuma tarayaan in lagugu ciseeyo waxa aad haysato fadlan walaal ha iloobin inaad like saarto fiidiyowga una sheergarayso asxaabtaada mahadsanid يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون